adkeynta wada shaqeynta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, taasoo ay sheegeen madaxda dowlad goboleedyadu inay hakiyeen wada shaqeynta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. waxaa muuqanaysa in dowladda federaalka ay dhagaha ka fureysanayso baaqyadii iyo go-aamadii kasoo baxay golaha iskaashiga dowlad goboleedyada, taasoo caddeyn u tahay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uusan furitaankii kalfadhiga afaraad ee golaha shacabka soo hadal qaadin shirkii golaha iskaashiga dowlad goboleedyada iyo qodobadii kasoo baxayba, iyadoo lagu casumay furitaanka kalfadhiga labaad guddoomiye baarlamaan ee galmudug iyo hirshabeelle si ay u duraan warmartiyeedkii kasoo baxay golaha iskaashiga dowlad goboleedyada. waxayna caddeynaysaa kow in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uusan wax tixgelina siinin qodobadii ku caddaa warmartiyeedka ee qeexayay qaabka la isugu imaan karo. labo, faragelinta qaawan ee dowladda federaalku ku hayso dowlad goboleedyada. saddex, in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu hormood ka yahay faragelinta qaawan ee lagu hayo dowlad goboleedyada kadib markii uu labada guddoomiye baarlamaan ee galmudug iyo hirshabeelle u ballan qaaday wada shaqeyn. waxaa soo ifbaxaya in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu ka shaqeynayo farangeli qaawan uu ka wado deegaanada galmudug qaarkood si loo burburiyo dhammaystirka heshiiska galmudug iyo ahlu sunna wal-jamaaca. haddaba waxaan ugu baaqaynaa shacabka soomaaliyeed gaar ahaan reer galmudug inay ka digtoonaadaan cawaaqib xumada ka dhalan karta faragelinta qaawan ee ay hormuudka ka tahay dowladda federaalka soomaaliya, taas oo aan ognahay dhibaatada uu soo maray dalku, isla markaana aan loo baahnayn in dib loogu celiyo ummadda soomaaliyeed wixii lasoo maray. waxaan ugu baaqaynaa waxgaradka, culamaa udiinka, ururada bulshada rayidka ah, xisbiyada siyaasadeed, beesha caalamka iyo dowladaha daneeya arrimaha soomaaliya in ay si dhow ula socdaan faragelinta qaawan ee dowladda federaalka soomaaliya ay ku hayso dowlad goboleedyada, gaar ahaan dowlad goboleedka galmudug. dhammaad wabilaahi towfiiq.